Assalaamu calaykum walaalayaal kusoo dhawaada darsigeena ee maanta darsigeena waxaan uga hadlaynaa waxa loo yaqaano inner join sidaad ogtihiinba horey waxaan uga soo hadalnay sida data aad ugu soo dooran lahayd tableka iyo columnka iyo rowska iyo wax walba adiga aad rabto meeshaas tablekaas ku keydsan ama databasekaas ku keydsan sida loo soo doorto waan soo baranay. Hadda waxaan baranaynaa topicyada ugu muhiimsan databaseka markii la joogo kamid ah oo lagu magacaabo joining, kaas oo noo ogolaanayo inaan isku xiriirino ama isku xirno daatooyin oo ku kala jira laba table oo kala duwan. Joiningka noocyo badan ayuu leeyahay, waxaa kamid ah inner join, outer join iyo kuwo kale oo badan. Maanta darsigeena waxaan diiradda saaraynaa inner join waxaa loola jeedaa haddii laba table sida halkan aad u jeedidba aad rabto data ku jirto inaad isku xirto ama connection aad u samayso haddaad rabto ama isku meel aad iskugu keentid haddaad rabto oo daatooyinkaasna isku mid yihiin oo laba table ku kala jiraan ayaad u isticmaalaysaa. Tusaale halkan labadan table oo noo abuuran, table waxaa lagu magacaabaa A, table kalena waxaa lagu magacaabaa B. Tableadan waxay leeyihiin ID iyo names ayay leeyihiin, magacyo iyo ID ayay leeyihiin. Halkan labadan table markaad si fiican u fiiriso, tableka koowaad oo eeda wuxuu ku kooban yahay magacyo sida Axmed iyo Moxamed iyo Najmo iyo Nimco. Midka labaad wuxuu kooban yahay Axmed iyo Aadam iyo Nimco iyo Cali. Labada haddaad fiiriso waxaa jiro magacyo oo labadaba ku jiraan sida Axmed iyo Nimco. Labada table waa laga helayaa. Inner join tableka A ayay waxay ku soo dooranaysaa Axmed iyo Nimco, waxay ku xiraysaa table B oo asna ku jiraan Axmed iyo Nimco, way combine gareynaysaa wayna isku xiraysaa. Muhiimadda loo isticmaalona taas ayaa ugu muhiimsan. Marka anagoo tusaalooyin isticmaalayno aan fiirino inner join sida loogu isticmaalo databaseka nakeena pgadmin4 keena. Halkan markaad joogto haddaan rabno inaan isku xirno laba table sida customer table iyo payment table, ilaan sidaad ogtihiinba markaa soo doorno isheego waxaan noo keydsan halkan markaad tagtid tableska markaad tagtid halkan waxaa noo keydsan table badan sida waxa waaye customer iyo waxa waaye payment, language iyo waxyaabooyin badan. Waxaan rabnaa hadda inaan isticmaalno payment tableka iyo customer table ayaan rabnaa inaan isticmaalno si aan iskugu xirno data oo ku jirto labadoodaba u siman yihiin ama data isku mid ah oo labadooda ku jirto. Marka halkan waxaynu leenahay select soo dooro. Maxaan ku soo dooranaynaa select ayaan leenahay everything, waxaad ku soo doorataa from waxaan leenahay payment, wax wal payment nooga soo door ayaynu leenahay. Halkan waa ujeedaa paymentiga iyo datadiisa sida payment ID iyo customer ID, staff ID, wax walba ku keydsan yihiin ayaana loo soo dooray. Marka halkan maxaynu leenahay anagoo meeshan joogno waxaynu leenahay inner join waxaynu leenahay marka hore waxaad leedahay horta ka soo dooro wax walba paymentiga. Inner join adigoo ku xiraayo ayaad leedahay maxaad ku xiraysaa customer. Halkan waxaad leedahay on payment dot customer. Marka waxaad raacinaysaa magaca ama column name-ka ayaad raacinaysaa oo ah customer ID. Halkan waxaa ujeedaa column name oo lagu magacaabo datada markaad fiiriso paymentiga. Customer oo waxaa ku jiro customer ID ku jiro waa column name. Marka dot waxaad leedahay customer ID-gan iyo wuxuu noqonayaa isheego lamada isku xiraynaa wuxuu noqonayaa customerka iyo waxa waaye paymentiga. Labadan table ayaan rabnaa inaan isku xirno data ku jirto. Marka datada waxaan leenahay waxay ku kala jirtaa payment ID-ga iyo waxay la mid tahay leenahay marka halkan customer dot. Marka halkan waxaynu leenahay customer ID-ga halkan saa u jeedid waxaan dhahnay soo dooro, waxaad soo doorataa payment, waxaad ku soo dooro datada ayaan leenahay adigoo ku xiraayo payment tableka customer table adigoo ku xiraayo oo waxaan rabnaa inaan soo dooro. Intee ku soo dooranayna customer ID ayaan rabnaa oo customer ID-da iyo magacyada
customer ID da isku mid ah dheh ayaan rabnaa marka inaan soo doorano. marka halkan waa payment customer ID waaye, waxaan rabnaa inaan ku xirno maxay customer ID ayaan rabnaa inaan ku xirno customer ID payment ID waxa waaye customer ID ayaan rabnaa halkan inaan soo doorano. marka halkan marka joogno waxaynu leenahay run. marka halkan waa ujeedaa waxaan loo soo dooray maxay payment ID iyo customer ID da ayaan loo soo dooray oo labada dhinacba ay ku keedsan yihiin, payment ku keedsan yihiin, customer ku keedsan, labadaas table ku keedsan yihiin ayaana loo soo dooray. sida halkan aad ujeedidba intaan daatooyin aad ujeedo labadan table waa laga helaa, paymentna waa laga helaa, customerna waa laga helaa. marka waana loo soo dooray sida halkan aad ujeedidba. marka ka waran haddaan rabno inaan soo doorno columns, hadda waxaan soo doornay oo waxa data aan kusoo doornay waa tables ayaan data kusoo doornay. ma kusoo dooran karnaa column haddaan rabno inaan u baahno kusoo dooran karnaa. halkaana waxaan sameynaynaa waxaynu leenahay payment ID waxaynu leenahay payment ID waxaynu leenahay payment.customer ID. marka sida tan ayaanu sameyn. halkan marka waxaynu leenahay select soo dooro payment ID ga iyo waxaad soo doorataa payment customer ID ga soo dooro first name yada, then yani daatada waxaa noogu soo table lagu magacaabo payment adigoo ku xiraayo waxaynu leenahay customer-ka. marka maxaa rabnaa inaan meesha aan ku soo doorno payment ID iyo waxaan rabaa inaan ku soo doorno customer ID. sax waaye. marka halkan waxaad leedahay run ayaad leedahay. marka sida halkan u jeedidba wax waaye waxaan leenahay soo dooro payment-ga column-ka payment ID ga iyo waxaad soo doorataa payment-ga customer ID ga soo dooro ayaynu leenahay. then waxaan leenahay first name. halkan waxaa u jeedaa intaan first name-da u jeedo Peter, labada column waa laga helaa payment ID iyo customer iyo sheeg waxaa laga helaa labada table waa laga helaa oo payment iyo customer labada waa la soo dooratay. halkan u jeedo Peter iyo waxa waaye customer ID dan intaan oo dhanba labada table iyo labada column waa laga helaa. marka halkan waxaynu leenahay soo dooro payment ID ga iyo waxa waaye payment customer ID ga iyo first name ka waxaad ku soo doorataa inuu leenahay payment ku soo dooro adigoo ku xiraayo customer table loo yaqaano adigoo ku xiraayo on payment customer wuxuu la mid yahay leedahay oo isku mid ah labada table waxa ku jiro columns-kooda iyo tables-kooda daatada ku jirto oo isku mid ka ah soo join garay. marka waxaad leedahay isku keen ayaad leedahay. marka waxa ku soo baxayo daatada first name-da dadkan first name-dooda ay tahay Peter iyo customer ID-dooda ay tahay 341 iyo waxa ku soo baxayo payment ID-gooda. marka sida tan ayay u shaqeynaysaa inner join markii la joogo SQL. marka inner join waxaan ku soo sheegnay sida aan soo sharaxnayba yani waxay isku xiraysaa laba table oo kala duwan, daatooyin ku jirtana labada table isku mid ay yihiin. sida waxaan tusaalooyin ahaan u soo qaadanay table-kan A iyo B table-dan waxay ku kooban yihiin magacyo, magacyadaas waxaa ku jira magacyo oo isku mid ah sida Nimco iyo Axmed. marka inner join markii la isticmaalayo table A ayaa waxa lagu soo dooranayaa Nimco iyo Axmed lagu soo dooranayaa, waxa lagu xirayaa oo isku meel isku keenayaa Nimco Axmed oo ku jiraan table-ka B. marka darsigeena maanta wuxuu ku koobnaayay sida loo isticmaalo inner join markii la joogo SQL ama SQL. marka aad baad u mahadsantihiin. intaan darsi lamid aan kulmayno waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.